kulanti haboon daawadayaal halkaad naga daawanaysaan waa channelkeena Runmal Media alaba halkan waxaan idinkugu soo gudbinaa xogii u dambeeyay dhacdooyinka caalamka gaar ahaan kuwooda ugu waaweyn intaad muuqaalkan daawanaysana waxaan ku soo gudbin doonaa Israa'iil oo markale hulceysa kadib markii weerar isdaba joog oo bartilmaameed ah Iiraan ay ka fulisay magaalooyinka waaweyn ee Israa'iil waxaana halkaasi cagta lagu marsiiyay ku dhawaad 300 oo guri waxaa jira dhimasho dhaawac oo ka dhashay duqeymaha bartilmaameedka Iiraan ee ka fulisay dalkaasi Israa'iil Netanyahu xilligan waxa uu dhafoorka u leeyahay jabka culus ay soo gaarsiisay Iiraan kadib markii ay awoodi waayeen in ay ka hortagaan duqeymaha bartilmaameedka Iiraan ay ka fulisay magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi Israa'iil xogii u dambeeyay ee duqeyntaasi sidoo kale faahfaahinada u dambeeyay ka soo baxaya ayaa halkan idinkugu soo gudbin doonaa waxaa sidoo kale intaad muuqaalka daawanayso ku soo gudbin doonaa Mareykanka oo mar kale dharbaaxo kulul ay ku dhufatay Iiraan kadib markii diyaaradaha muhiimka gaar ahaan kuwa shidaalka qaada ay Iiraan ay ka soo riday Israa'iil sidoo kale Mareykanka xilligan waxay doonayaan inay dagaalka ka socda bariga dhexe ay joojiyaan isla markaana ay wada hadal ay la galaan Iiraan inkastoo Iiraan ay ka soo horjeedo ayna si laba jibaartay duqeymaheeda iyo sidoo kale weerarada isdaba jooga ay ka fulinayso magaalooyinka muhiimka u ah Israa'iil sidoo kale Mareykanka iyadoo horey Iiraan ay cagta u marisay saldhigyada military ee muhiimka u ah Mareykanka kuwaas oo ku yaala bariga dhexe sidoo kale wadamada Khaliijka Carabta xogii u dambeeyay xaaladda bariga dhexe xilligan ay ku sugan tahay ayaa halkan idinkugu soo gudbin doonaa haddii ay tahay markii ugu horeysay uu ku soo gaaro muuqaalkeena fadlan subscribe inoo dhegan baleelkan fursi ay ku soo gaaraan muuqaalada kale xiga haddii aad subscribe inoo tahayna muuqaalka inoo share garay like inoo saar si oo gaar asxaab badan waad ku mahadsantahay daawashadaada aynu ku bilaabno qaybo badan oo ka mid ah magaalooyinka Israa'iil xilligan waxaa baxaya ololkooda kadib markii Iiraan ay la bartilmaameysatay duqeymo isdaba joog ah iyadoona ay la beegsatay duqeymahaasi goobo bartilmaameed waxa waxaana duqeymahaasi fuliyay diyaaradaha nuuca aan duuliyaha lahayn oo Iiraan ay leedahay iyadoona halkaasi Iiraan ay ku dhufatay gantaalada waaweyn ee nuuca balastikada gaar ahaan kuwii ugu dambeeyay ay Iiraan xilligan ay la soo baxday maadaama Mareykanka uu horey ugu sheegay Iiraan in hubkoodii uu ka dhamaaday balse Iiraan xilligan waxay muujinaysaa in weli ay hub culus ay haysato isla markaana ay difaac adag ay ugu jirto Iiraan aan iraahday Israa'iil sidoo kale Mareykanka duqeymahan ay ka fulisay Iiraan gudaha dalka Israa'iil ayaa waxaa la soo warinayaa in halkaasi khasaare aad u xoogan uu ka soo gaaray Israa'iil iyadoona sidoo kale la sheegay in cagta lagu mariyo ku dhawaad 300 oo guri oo Iiraan bartilmaameed u ahaa waxaa sidoo kale jira dhaawac iyo sidoo kale dhimasho inkastoo Israa'iil ay weli aysan faahfaahin rasmi ah ee ka bixinin khasaaraha dhabta ee ka soo gaaray duqeymaha Iiraan ay ka fulisay gudaha dalkaasi Israa'iil dadka deegaanka qaarkood ayaa xilligan oynaya waxayna ku hadaaqayaan niyad aad u xoogan kadib markii Israa'iil ay ku guuldareysatay ka hortagga weerarada kaga imaanaya dhanka iyo Iiraan ay iraahdeen waxaa sidoo kale jira toogasho toos ah oo ku socota gudaha dalkaasi Israa'iil kuwaas oo ay fulinayaan ciidanka militariga difaaca cirka ee Iiraan waxaana sidoo kale Israa'iil ay ku guuldareysatay inay qabtaan gantaalada ay soo riday Iiraan kaasi oo si guul u gaaray bartilmaameedkii ay la rabtay Iiraan dhinaca kalena booliiska Mareykanka ayaa si degdeg ah ugu cararay kaniisadda ugu weyn ee Israa'iil ee ugu taala halkaasi kadib markii la arkay qiic ka baxaya iyo sidoo kale ololka cirka isku shariiray kaasoo ay xakameeyeen waayeen dadkii ka agdhawaa jasiiradda Israa'iil laga leeyahay ayaa sidoo kale tabisay in ku dhawaad amaba in ka badan 300 oo guri ay waxyeelo ay soo gaartay iyadoona halkaasi ay ku guuldareysatay Israa'iil inay ka hortagto weerarada bartilmaameedka ee Iiraan ay ka fulinayso gudaha dalkaasi Israa'iil
Netanyahu xilligan waxa uu dhafoorku u la heystaa jabka culus ee ka soo gaaray dhanka iyo Iiraan maadaama aysan filanaynin in Iiraan ay fulin karto weerarada noocan oo kale isla markaana ay barkinta ay dheereysteen madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu. xilligan labadaasi mas'uul waxa ku xun xaaladda iyadoo Iiraan imanka waagu u bariyay isla markaana ay sheegtay in duqeymaheeda iyo dagaalka xilligan ay bilow yihiin wixii horey ay u soo sameysay oo ahaa gantaaladii ay riday saldhigyadii military ay cagta marsiisay kulligood bay ku sheegtay inay ahaayeen jawaabtii ay ka bixinaysay weeraradii Mareykanka iyo sidoo kale Israa'iil sida wadajirka ay ugu fuliyeen gudaha dalkaasi Iiraan kaasi oo ay ku geeriyoodeen mas'uuliyiinta ugu sarreeyay ee dalkaasi Iiraan oo ugu horeeyo hogaamiyaha ugu sareeya ee dalkaasi Ayatollah Ali Khamenei. Iiraan xilligan waxay ku dhawaaqday in dagaalka uu bilow u yahay xilligan Mareykanka iyo sidoo kale Israa'iil ay dalbanayaan in wada hadal ay la galaan Iiraan inkastoo Iiraan hadalladaas oo dhan ay dhigaha ay ka fureysanayso isla markaana kaliya uu u cad yahay argoosi ay u argudayso mas'uuliyiinta ugu sarreeyay dalkaasi ee lagu dilay gudaha dalka Iiraan iyo sidoo kale ardaydii aan waxba galabsanay iskuulka lagu duqeeyay oo ay ku geeriyoodeen ku dhawaad 50 arday oo wada dumar ahaa. wixii xoogay ku soo kordhay la xiriira duqeyntan laga fuliyo gudaha dalka Israa'iil muuqaaladeena xiga iyo idinku soo gudbin doona iminkana. diyaaradda Mareykanka uu leeyahay ayaa lagu burburiyay dalka Ciraaq sida ay xaqiijiyeen militariga Mareykanka. kooxda Islaamiga ee ka dhisan Ciraaq ayaa sheegtay inay soo rideen diyaaradda shidaalka qaada ee Mareykanka uu leeyahay sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. kooxda Islaamiga ee Ciraaq oo koox taageerta Iiraan ayaa soo saartay bayaan ay ku sheegtay inay weerareen diyaaradda nooca CK-135 oo diyaaradda qaada ama bakeydisa shidaalka si ay u difaacdo madax banaanida qaranka ee dalkaasi Ciraaq sidoo kale hawada taliska dhexe ee Mareykanka waxaana ay ku dhawaaqday burburka diyaaradda militariga ee nooceedu uu yahay KC-135 oo kuwa uu leeyahay militariga Mareykanka oo ku burburay galbeedka Ciraaq. qasaare weyn ayaa soo gaaray Mareykanka kadib markii la xaqiijiyay in diyaaradan KC-135 oo nooca shidaalka ee diyaaradaha kale ee hawada ku siiya oo ay ku qaraxday meel u dhow Ciraaq. wararka ayaa waxay sidoo kale sheegayaan in diyaaradan ay saarnaayeen ilaa 6 qof, 2 pilot iyo sidoo kale 4 shaqaale kale kuwaas oo qaabilsanaa tubada ee shidaalka. haddaba waa maxay tahay diyaaradan ay Iiraan ku guuleysatay inay ka soo rido Mareykanka taasoo ay ahayd midii ugu awood badneed ee Mareykanka ay ku faanayeen. KC-135 waa diyaaradii ku dhacday ee dalka Ciraaq. waa diyaarad military oo Mareykanka uu leeyahay oo loogu talagalay inay shidaal hawada ay ku siiso diyaaradaha kale waxayna ka mid tahay diyaaradihii ugu muhiimsanaa ee taageerayay howlgalka Ciraaq. shaqada ugu weyn ee diyaaradan ay qabato ayaa waxay tahay inay shidaal ay ku shubto hawada diyaaradaha kale iyagoo aanan dhulka u soo degin. waxaana loo adeegsadaa inay hawada ay ku siiso shidaal diyaaradaha kale. doorkeedu ugu weyn waa taageerida howlgallada ciidanka cirka si diyaaradaha dagaalka ay u sii wadaan duulimaadyada dhaadheer iyaga oo aanan dhulka u soo degin. diyaaradan waxaa soo saartay shirkadda Boeing waana markii ugu horeysay oo la geliyay adeega ciidanka cirka sanadka markuu ahaa 1957. tan iyo waagaas waxay noqotay mid ka mid diyaaradaha ugu muhiimsan ee taageera howlgallada militariga ee Mareykanka iyo sidoo kale xulafadiisa. KC-135 waxaa si gaar loogu talagalay howlaha loo yaqaano Iran taasoo in hawada lagu shubo shidaal diyaarad kale si aysan dhulka u soo degin. waxaana diyaaradaha ay siiso shidaalka ka mid F-15, F-16 iyo B-52. nidaamkani wuxuu u ogolaanayaa in diyaaradda dagaalka inay gaaraan masaafo aad u dheer iyaga oo sii wada howlgalkooda. dhinaca kalena farsamada KC-135
waxay leedahay dhirir gaaraya qiyaastii 41.5 mitir halka baaxadda balaarnaanshaheeduna ay gaarayso ku dhawaada 39.9 mitir. xawaaraha ugu badan oo ay ku duuli karto waxa uu gaarayaa qiyaastii 933 kiiloomitir saacadii. marka ay shidaal badan ay sido waxa ay duuli kartaa masaafo ka badan 2400 kiiloomitir iyadoo qaadi karta ilaa 90,000 kiilo oo shidaal ah oo loogu talagalay diyaaradaha kale. diyaaradan waxaa badanaa maamula shaqaale ka kooban 3 ilaa 4 qof kuwaas oo kala ah duuliye, kaaliyaha duuliyaha iyo sidoo kale qofka maamulaya tubada shidaalka ee loo yaqaano boom operator. qofka ayaa gacanta ku haya nidaamka tubada adag ee gaaska diyaaradaha ka baxa taasoo si toos ah ugu xirmata diyaaradaha kale si shidaalka loogu shubo inta ay hawada ay ku jiraan. KC-135 ayaa muddo 10 sano ah ahayd lafdhabar u ah militariga ee dalkaasi Mareykanka. markaan waxa u muuqata in Iran ay ka guuleysanayso dagaalka xilligan ka soconaya bariga dhexe u dhaxeeya Iran, Mareykanka iyo sidoo kale Israa'iil, iyadoo marka hore weerarkaasi daandaasigiisa ay si wada jir ah u soo bilaabeen Israa'iil iyo sidoo kale Mareykanka iyagoona duulaan qaaban ay ku qaadeen gudaha dalka Iran. wixii xogay ku soo kordhay ee la xiriira xaaladda bariga dhexe muuqaaladeena xiga ay idinkugu soo gudbin doonaa. haddii ay tahay markii ugu horeysay uu ku soo gaaro muuqaalkeena fadlan subscribe inoo dhegan baleelkana furso ay ku soo gaaraan muuqaalada kale xiga. haddii aad subscribe inoo tahayna muuqaalka inoo share garay like inoo saar soo gaar asxaab badan waad ku mahadsantahay daawashadaada. aragtidaadana waa inoo muhiim inoogu reeb qaybta faalada.